inaanu caawa halkan ku kulanay fanaan qaali ah oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed wada taqaano waa Salaad Maxamed Shardi sidaa darteed waxaan ku wareystay magaaladan Edmonton ee gobolka Alberta dalkan Canada waxaan markaa weydiiyay bal inuu iga sheego Salaad Maxamed sidii uu fanka ku bilaabay arigii hooyo fanka waxaan ku bilaabay anigoo yar oo orfan ah ayaan fanka bilaabay markii iskoolkan ku heesi jiray markaan elementary ahaa iyo kasii hoosba marka iyo xataa markaan dugsiga dhiganayay marka waxaan bilaabay adiga nin cali la yiraahdo macallinkayga ahaa ayaa soo waday wuxuu iga keenay Saciid Xarawe ninka la yiraahdo marka waagaas waxaa laga heesi jiray xisbiyada leegadoo kale gareedkoo kale halkaas markaan ku bilaabay barihii aad fanka bilowday wax dhibaato miyaad kala kulantay markay noqoto dhinaca waalidka ama ummadda Soomaaliyeed ee markaa xigtada ahayd runtii wax dhib aan kala kulmay sababtoo horta aan agoonaan aabay waaba nimayo markaas marka waxaan noolay hooyaday hooyana niska kula jaala maadaama aan ahaa waxba kama qabin arrimahayga maaragtay inaan fanka wado aad ugu faraxsanayd waa intaas Salaad marka la eego magacan Derby sideeba kugu baxay magaca Derby waxa la bixiyay maaragtay anigoo 8 jira 58 markay ahayd markii aan orphan la geeyay waa 1958 markaas orphan la geeyay macallinka ay bixiyay wuxuu dhahay kan waa dhiga adag yahay Derby waa waxba marayaan laakiin si hal badan qaar in Derby laga helay u maleynayaan qaar waxbay u qaataan laakiin sida runta ya Derby waa markaas sidii jirkii baxday waana dhiga adag iyo xogaa macallinka uu bixiyay warkaas marka magacaasi saas ayuu ku yimid isagu marka aad eegto fanka Soomaaliyeed herarkii uu soo maray iyo herarkii adigu aad ka soo qayb gashay wax ma iga sheegi kartaa kuwa iyaga markay ahayd 58 aan warfana galay mugtahay marka intaas muddadaas ku jiray 63 markaan Xarawe iyo groupkaas laga keenay waxaan ka qayb galay oo aan tagay raadiyo Muqdisho markii ay ahayd 63 raadiyaha la geeyay markaas dhibka aan kala kulmay wax kale ma ahayn markii aan habeenkaas heesay waa la filan waayay habka aan heesay 60kii ahayd iyo 3 runtii aad loola yaabay arrintii hees aan heesay marka waxay igu tareed shaqadii waa la siiyay laakiin ninkii directorka raadiyaha ahaa ayaa wuxuu yiri waxa la dhaxsiiyay wiilkan yarka oo 13 jirka heestu ku fiican yahay laakiin korontada jiidaysa waxa loo qabi jiray dadka inay korontada jiidayso haddii uu heesayo ama wariyay oo runtii caanaha la sii jiray dadka xataa wararka duuba iyo waxaas marka waxay isleeyihiin qofkan korontada way dilaysaa waa jiidaysaa marka adiga markii dambe waxay iska daba wareegto rag baa la hadlayo yiri walaal waad sheegaysaa ninku agoon yahay meeshan waa istaaylahay waa inuu shaqada bilaabaa adiga ninkii markii dambe soo rajuucay inaan shaqadiisa asan ku bilaabay 64 aan bilaabay shaqada heeskii ugu horeeyay qaado ma xasan tahay hees badan aan qaaday laakiin hadda magaaladiina waxaan ku arkay heesii waagan yaraa codka caruurta aan lahaa ila dadaal oo kale ayaa yaala laakiin hees badan calankeena siraada xagee ilaa laga helaa ila doona way badnaayeen laakiin si wanaag ila dadaal adiga meesha studio waaga la soo qaadayba habeenoodan dhageysanay
إلى